kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. bismillaahi raxmaan raxiim. waan ku dhowahay barnaamijka madasha dhallinyarada v o a. waa mahadsan tahay. waan salaamayaa cabdiwaaxid. v o adana waa mahad celinaya barnaamijyadan ay kusoo kordhisay idaacadda v o a ee madasha dhallinyarada ee ahaa barnaamij loo baahan yahay. haddii aan ka hadlo arrintan dhallinyarada maxaa kusoo kordhi kartaan deegaanada ka timaadeen arrimaha dhallinyarada, waxyaalo badan ayaan kusoo kordhi karnaa. annaga meesha tan aan joogna hadda waxaan ku qaadanay barnaamij oo dhallinyarada wacyigelinta iyo managementigii iyo leadershipkii iyo barnaamijyo khilaafka xalinta khilaafka. waxaan qabaa inaan wax badan kusoo kordhi karno. wixii aan baranana aan rabno inaan u faa'iideyno dhallinyarada deegaanadeena ka nimid insha allah. cabdiraxmaan macalin maxamuud kana mid a dhallinyarada ee magaalada gaalkacyo ee kuna magac dheer nadaara. haddii laga hadlo doorka dhallinyarada wacyigelinta, waxyaabihii aad soo jeediseen waxaad ka mid ahayd sidii looga hortegi lahaa arrimaha tahriibka. kaalinta dhallinyarada gaalkacyo adiga oo ku hadlaya afkooda intay la ekaan kartaa inaad dhallinyaradii ka dhaadhicisaan inay ka baaqdaan ama ka baaqsadaan tahriibkii oo ah musiibo dhallinyarada la soo daristay? aad iyo aad baan u mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isxaaq. sidoo kale waxaan mahad celinayaa guud ahaan bahda v o da. waxaan uga mahad celinaynaa dee barnaamijkan dhallinyarada ee madasha oo runtii aragti badan iyo afkaar badan ay isku weydaarsadaan dhallinyaradu inay noo soo bandhigeen. aad baan uga mahad celinaynaa. intaas kadib haddaan u galo su-aasha ah doorka dhallinyarada gaalkacyo ay runtii ku yeelan karto barnaamijkan tahriibka, runtii waa door muhiima. dhallinyarada waxay ka qayb qaadan kartaa runtii isku taxallujis badan haddii la sameeyo in la yareeyo barnaamijkaas tahriibka annagoo u marayna dhanka wacyigelinta. sidaan ognahayba dhallinyarada waxa ku rida buufiska amase waxa loo yaqaano qofka intamaankiisa la bedelo waxaa ka mid a dhallinyaro kalete oo runtii ayagoo intay dhib mareen oo rafaad mareen, sheekadii la dhihi jiray qofka inta god inta laga qaniino uu intuu qarayo uu yidhaahdo asagana si kan kale looga qaniino uu dhihi jiray aniga waxba ima gaarin oo kaleete ayaa runtii sameeya. oo intay tagaan ayagoo baahi u baktinahaya oo aan qadayn oo aan quraacan, laga yaabo inaysan cashayn, masawiro qurxuun meelo wadamo kale intay isaga soo masawiraan ay soo bandhigaan, yidhaahdaan meeshaan qurxuuna jiifnaa. sidaas si la mid ah dhallinyaradeenna joogta Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan gobolka mudug amase magaalada gaalkacyo, waxaa jira wacyigelino badan oo dhallinyarada lagu tashkiilinayo inaysan gelin tahriibin. si taas looga hortago tahriibka, hadda waxyaabo badan waxaa jira la sameeyo oo aan isticmaalno barnaamijyadan meediyaha oo laga wacyigeliyo oo local media oo kaleete gaalkacyo kaleete la isticmaalo dhallinyaradu inaysan tahriibin iyo dhibaatooyinka uu leeyahay oo kaleete looga wacyigeliyo. waxaa jira social media oo kaleete amase baraha bulshada oo kaleete la isticmaalo inaysan, tusaale hadda waxaa jira bicturo anugu aan khaasatan dhigo oo aan ku tusinahayo bedelka markay dhallinyarada dadka buufiska ku ridaa soo masawiraan meelo qurxuun oo wadamo kalea, inaan dhigno masawiro waddankeenoo dooga oo cagaar ah inta isku masawirno aan ka dhigno inay wax dhanoo loo cararaya hadday tahay quruxdaan iyo deegaanka tahayna inuu keenu uu la mid yahay siday kaga baqato. oo aan nidhaahno haddee qofkii awal masawir ku tahriibow masawirka midkaana qurxuuna kan qaado, dib dalkaaga dib ugu soo laabo. waxaa ka mid a dhallinyaro badan oo isku taxallujinaysa inay tahriibaan oo niyadda kaga jirtay in tashkiilis lagu sameeyo la yidhaahdo saaxiib waddankaaga fiican ma leh. dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibku la tuso, waxa ka soo wajihi kara la tuso, waddamada loo tahriibahayaa sida ay u dhib badan yihiin mararka qaar la tuso. kulamo la qabtaa jira, fooramo dhallinyaradu qabato oo marba siday u suurto gasho loogu baahdo monthly amase weekly amase yearly loo qabto oo dhallinyarada looga wacyigeliyo si loo bedelo arrintaas. marka baa kugu soo noqon doonaa aan siiyo sacdiye xirsi koyste oo ka mid a dhallinyaradii ka timid deegaanka ceeldibir. haddii la fiiriyo kaalinta haweenka ee wacyigelinta
intay gaarsiisan tahay deegaanadii aad ka timaadeen haddii ay noqon lahayd in haweenkii ama gabdhihii la wacyigeliyo dhalinyaradii laga soo jeediyo ama laga weeciyo dhinacii xumaanta? maasha allah, bismillaah. waxaan halkaan uga mahad celinaa idaacadda v o a oo mar walba noo soo deysay barnaamijkan dhalinyarada. runtii haddii aan guda galo barnaamijka kaalinta haweenka wacyigelinta, si fiican ayuu noo maraya. annaga haddaanahay haweenka dhalinyarada ee degmada Ceeldibir iyo ku hoos yimaado, waxyaalo badan ayaa jira oo aan ka dugnay awal, laakiin dhaqan ahaan jira oo xagga caafimaadka ku saabsan. waxaan kala hadalnaa mar walba annaga haddaanahay dhalinyarada haweenka, waxaan kala hadalnaa in la joojiyo gudniinka fircooniga oo kaleeto, oo ah runtii mid dhaqan annaga nagu ahaa oo xun, oo hadhow dhibaato keeni karay, oo gabdhaha xad wuxuu marin jira ah in gabdhaha la qalo, dib loogu laabto, rafaad badan lagala kulmi jiray. runtii kaas annaga si weyn ayaan uga soo horjeesanay, wacyigelin baan ka sameynay. waxaa jira hooyooyin badan oo naga qaatay, kuwa nagu diida, kuwii nagu diidana hadda waan ku daba jirnaa weli oo kama aanan harin. aan siiyo cabdi cismaan xirsi, ka mid ah dhalintii ka timid degmada Hobyo iyo deegaanada hoos yimaada ee Gawaan ay ka mid ka tahay. Hobyo waxaa in badan horey loogu tirin jiray inay fariisin u ahayd burcadbadeedii dhibaatooyinka u geysan jiray badaha caalamiga, maraakiibta isaga kala gooshta iyo doonyaha. inkastoo hadda VOA-da aysan hubin in falal burcadbadeednimo ay ka jiraan deegaanadaasi ama dhalin burcadbadeeda ay joogto, haddana waxyaabihii aad soo bandhigtay waxaa ka mid ah in dhalinta laga celiyo ama laga wacyigeliyo falalka burcadbadeednimada ah. marka hore, ma dareen burcadbadeednimo ah ayaa halkaa ka jira, mise dhalintii hore raadadkoodii ayaad ku fakeraysaan inaad wacyigelin u samaysaan? waxaan meeshaan ka warbixinayaa hadda meeshu deked weeye macmila, taag baa yimid, doonyaha ka dega. hadda ammaankeedu wuu sugan yahay, laakiin xoogaa waxaan hadda ka cabsi qabnaa burcadbadeedii hore oo meesha raadadkeedu ku haray ayaan rabnaa si loo suuliyo. suulisku maahan dil, maahan in qofka jeel lagu rido, waa in qofka maskaxdii iyo brogramkii saarnaa oo ahaa inuu xoolo islaameed boobo ama handado ama uu si ku sameeyo, naqshad ka bedelan inaan ku samayno, iskuulaad loo furo, wacyigelin ballaaran lagu sameeyo, waxa weeye shaqo abuur loo sameeyo haddii ilaahay idin hayo, oo wacyigelinta ballaaran la samaynhayaa, mid waxbarasho, mid shaqo abuur oo badahoodii loo calamiyeynayo, doonyahoodii iyo shamaagahoodii iyo qalabkoodii, jeestadii. sidoo kaleeta in loo habeeyo. qofku hadduu saas ku mashquulo oo arrintaas la helo, waxaa dhicin karaysaa inuu qofku burcadbadeedii horeete naftiisi markii maarayn loo helo, biil loo helo, waxa weeye meel uu ka soo dhacsan karo nolol maalmeedkiisa uu helo inuu iska dhaafo. laakiin hadda Hobyo 100% waa ammaan. annagaa ka cabsi qabna burcadbadeedii hore oo raadadkooda meesha ay ku hareen. insha allah waxaan danaynaynaa marka in hay-aduhu dhammaan naga taakuleeyaan wacyigelinta noocaasa, kuwa waxbarashada iyo kuwa iskaashatada badda iyo kuwa waxa weeye nooc kasta leh. saasaan danaynaynaa. cabdiwaaxid v o a. aad ma mahadsantiin dhammaantiin. cabdi macalin, deegaanka Wisil, waxyaabihii aad soo gudbiseen marka aad qiimaysaan ma isleedihiin hay-addii tababarkan idiin qabatay gacan rasmiya ayaad ka heli doontaan si dhallinyaradii kaabayaashoodii loo hormariyo? waa mahadsantahay mar labaad cabdiwaaxid. mar labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo asxaabteeda dooda ee kala qayb galaysa, Mr. Cabdi Nadaara, Cabdi Madaale iyo Sacdiyo. runtii waxaan ka faa'iidnay seminaarkan ama workshopkan waxyaalo badan ee aan rabno annagoon deegaankeena inaan uga faa'iidayno. way jiraan annagana action balaan aan soo dejinnay ee aan rabno deegaanadii dhalinyarada in laka hormariyo, loo hormariyo barnaamijka wacyigelinta hadday tahay barnaamijkan nadaafadda bilicda magaalada ee dhalinyaradu berihii u dambeeyey oo ay ku samaynaysay, iyo waxbarashada iyo caafimaadka. aan rabno dhalinyarada intaas laga soo kaabo. waxaan rajaynaynaa inay hay-addu gacan naga sii doonto insha allah. dhalinyarada degmada Wasileed waxay wadaan ole ay rabaan inay ku samato bixiyaan deegaanka, ay bilicda dib ugu soo celiyaan, hadday tahay waxbarashadii, hadday tahay nadaafadii, hadday tahay caafimaadkii. waxaan rajaynaynaa deegaanada kale dhalinyarada ka timid ee gobolka Mudug ayaguna inay sidaas kale samayn doonaan, inaan waxyaalihii aan ka qaadanay meesha faa'iido ay u noqdaan deegaanadeennii awalna horaan aan u qaban jirnay. marka waxaan rajaynayaa in hay-adaha caalamkana ay iyagana naga caawiyaan in barnaamijyo badan ayaa ka jira deegaankii.
waxaan u malaynayaa hadda barnaamijkan ugubka waa abaaraha deegaanada galmudug aada u saameeyey dhalinyaradana qayb ayay ka yihiin barnaamijyadaasi mataqaanaa dadkii xoolihii ay dhaafeen sidii loo taakulay lahaa ayadana waxaanu nahay hayadaha caalamka inay naga siiyaan gacan naga siiyaan arrintaas beesha caalamka taasna u baaqaynaa insha allah aad baa mahadsantaha cabdiraxmaan qorshayaashii aad kulankan kusoo bandhigteen waxaa ka mid ah dhalinyaradiina gaalkacyo in horumarin laydinkugu sameeyo qaybaha isboortiga gaar ahaan garoomada lagu cayaaro kubadda maxay faa'iido leedahay marka la fiiriyo in la hormariyo garoon kubadda cagta ah maasha allah aad baa u mahadsan tahay cabdiwaaxidow adiga iyo inta dooda igala qayb gelaysaba runtii haddee sportisku dhalinyarada marka la yidhaahdo wuxuu kaga jira tiir dhexe wuxuu yahay waxyaabaha ka qayb qaata xitaa waxay ka mid tahay maadaama ka hadlayna hadda tahriibka o kalete waxyaabaha dhalinyarada maaweliya oo runtii ay niyaddooda waxa weeye dejiya oo stresska ka ilaaliya ayuu yahay cunuga qofku markuu walwalo waxyaabaha qofku stresska uu isaga ilaaliya waxaa ka mid ah waxyaabahan sportiska sidaas darteed maadaama garoon weyn uu ku yaalo stadium weyn uu ku yaalo magaalada gaalkacyo runtiina wax badan laga qabtay bayskiisii horena ay dhalinyaradu lahayd oo ilaa burburkii dowladda wixii ka dambeeyay ay dhalinyaradu gacanta ku hayeen hay-ado badan iyo xiriirka kubadda cagtana runtii wax ka qabteen ayana haddana waxaa sii jira baahiyo marka waxaan codsannay in baahiyahaas lasii dhammaystiro maalinba tallaabo la qaado oo hadda meelo badan oo runtii basketballkii iyo barnaamijkaas oo dhan loo sameeyo sida hadda adu qorshayaal ka dhidhiman intii laga qaban kara aan ka dhimana runtiina muhiimad gaara ayuu u leeyahay sportisku guud ahaan haddii sportiska hadduu muhiimad leeyahay baleyskii ama goobtii lagu cayaari lahaana in ayadana ahmiyad gaara la siiyaa aad bay u mudan tahay in la xuso marka saasaan ahamiyadda u sinay sacdiyo markii aad bilaabayseen wacyigelinta ku aadan gudniinka fircooniga ah deegaanku dadka dareenka ay idin muujiyeen sidee iday arkeen bulshada bismillah waa mahadsantahay cabdiwaaxid runtii howl uguba oo hore loo aqoonin markii la qabanayo way adagtaasi dadka bulshada looga dhaadhiciyo laakiin waxaan u adeegsanay xagga culimo diinka xagga dhalinyarada xagga hooyooyinka oo qaar oo fikraddii nala fahmay waxyaalo badan baan la hoos tagna laakiin dad imtixaanka qabanay ma aysan tegin meeshii goobtii iskama ay dhawaaqin markii shiiqii uu ka soo jeediyey masaajidka markii laga baxo salaadii uu yidhi maxayd baraarujin noocaasaa jirto ha la qaato shareecadda islaamka way ogoshahay diinteennu ma banaynin runtii dadkii mar labaad way wada baraarugeen wayna nala fahmeen in arrintaani ahayd arrin xadgudub ah oo aan shareecadda islaamka meelna aysan ka haysan oo arrin laga bartay dad jahil inay tahay sidaas ayay nagula fahmeen arrintii maasha allah way noo hirgeshay maasha allah waxaan rajaynaynaa in nala ka caawiyo hadda haddiiba ay jiraan hay-ada naga caawin karo arrinta noocaas baraarujinta aan wadno oo la dagaalanka gudniinka fircooniga ah oo muddo soo jireen ahaa waxaan ka codsanaynaa dhammaanba hay-adaha arrintaasi qusayso ama yacni arrimahaas wax ka qaban kara inay wax nagala qabtaan haddii aan lehed kuwa maamulada hadda aan hoos joogno galmudug haddii aan lehed dowladda federaalka hadday ahaan lahayd hay-adaha kale maxaa beesha caalamka wixii wax naga qaban kara arrintaasi inay naga caawiyaan degmada ceeldibir dhalinyarada joogta arrintaasi way u istaagtay hadday ahaan dhanka la dagaalanka gudniinka fircooniga aad waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waxaa laisla soo qaaday kulankii maantay arrimo ku salaysan kufsiga gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimaada heerka kufsiga dhalinta marka la fiiriyo ma dhibaatooyin dhinaca kufsigaa jira cabdiwaxid aad baa umahadsan tahay runtii arrinkaas rayibka waxa laysla soo qaaday weeye waa dhibaatooyin kolley guud ahaan soomaaliya ka jira waxyaabaha hadda gobolku mudug runtii waxa weeye waa meelaha runtii la tilmaamo maamuladuna ka jiraan haddana marka qaar falku waa dhici karaa midkii ugu dambeeyey hadda gobolka mudug marka laga hadlayo wuxuu ka dhacay galdogob mid aad u xunoo waxa weeye beesha caalamkii dadka dhan ogaadeen marka runtii dhallinyarada siiba gabdhaha waa waxa ay saameyn xun ay ku yeelanayso marka diiniyan iyo maadiyanba dadka in laga wacyigeliyo waa aaday muhiim u tahay laakiin wacyigelin ma ku filnaanayso
waa wax arrin security iyo maamul iyo administration mar walba u baahan. marka dhalinyaradu runtii waxay kaliya ku leeyihiin inay cabasho iyo ka muujiyaan mar walba intay wacyigelin karaan oo bari karaana dadka amnigana mar walba la xoojiyo. hadday noqon lahayd maamulada gobolka mudug dega hadday noqon ka arrimayaha aan idhaahdee hadday noqon lahayd puntland iyo hadday lahayd galmudug in laga taxadiro runtii aad baan baaqaas ugu jeedinaynaa. nin walba oo dhalinyaro ah waxa uu ku taamaya wadada wanaagsan, haddana ma muuqato tallaabadaas cid u istaagto. sababtu maxay tahay? maxaa sal u ah haddii ay noqon lahayd dhalinyarada dhinaca haweenka iyo hadday noqon lahayd dhalinyarada dhinaca raggaba? waa mahadsantahay cabdiwaaxid. waxaan dhihi karnaa soomaaliya gebi ahaanba burbur baa ku dhacay, dowlad la-aan. waxaa sababay dhan walba marka inay dhaqaalihii hoos u dhaco. waxaan dhihi karnaa marka waxyaalaha lidiga ku ay falalka xuna ee dhalinyarada keenaya inay ku kacaan xagga dowlad la-aanta iyo dhaqaala yarida. matalan anaga deegaanada hadda aan joogno oo kale falalkaas lidiga ku ay sida hadda riidka lasoo qaato kufsiga oo kale wuu ku yaryahay. dadkeena waa dad inta badan diinta islaam ku dhaqma, waa dad hadda u tiigsanaya horumar iyo sidee wax loo kobciyaa, sidee wax loo dhistaa tiigsanaya weeye. waxaan rabteynaynaa deegaanada kalena saasna kala noqon doonaan. aniga marka sababta waxaan dhihi karnaa wacyigelin la-aan dhalinyarada ee yar, wacyigelinta dhalinyarada ku yar, iyo sabab in la badiyo ayaan qabnaa wacyigelinta ku saabsan dhalinyarada si loo horumarin lahaa waxyaalaha falalka lidiga ku ahna laga hortegi lahaa. cabdiraxmaan, dhalinyaradii maalin walba horumaray ka hadlayaan, ilaa iyo haddana tallaabo horumar ma muuqato. sababtu maxay tahay? aad iyo aad waa su-aal aad u muhiima. cabdiwaaxidow, arrinka horumarka marka laga hadlayo, tusaale dhalinyaradu sidaa sheegtay waxay ku fakeraan inay barnaamij horumara ka shaqeeyaan. tusaale waxaan ka soo qaadanaynaa hadda waxaan ka hadlaynay in laga hadlo dacnaha la yareeyo tahriibta oo kaleete. dhalinyarada waxaa laga yaaba inay ka guuxayso wax walba ama project kasta marka la qabanayo mashruuc wuxuu u baahan yahay resources iyo waxyaabo looga baahan yahay. waxaa laga yaabaa inaysan 100% inaysan dhalinyaradu inaysan kofargarayn karinin oo aniga waxaa markaan rabo inaan wacyigelin sameeyo dhalinyaro inaan isku keeno isaga keeno gobolada mudug oo kale xitaa haddaan joogo waa meelo badan degmooyin badan inaan iskugu keeno mishinkan ku dhaqaaqi lahaa inta badan inaan waayaa dhici karta. markaas kadib aan disappoint noqdo, aan niyad jabo shaqadii sidaas. waxaa aniga keliya ka qayb qaadan karaa waxay noqon kartaa 20% ama 30%, macnaha dhallinyaradeena magaalada gaalkacyo joogta. 70 kale ama 80 kale waxaa laga macnaha la rabaa inay wax ku kaaba inay heshidaa la rabaa. 30 markaan 100% buuxsantid 70 kale wax ku kaaba ama dawladda noqoto. tusaale dhalinyarada markaan soo qaatay ereygii hadda tahriibka oo kaleete, wax ugu badan oo dhalinyarada tahriibiya marka laga soo tago hamiga cusub ee dhalinyarada kale u sheedaan waa baahi iyo faqri iyo shaqo la'aan. marka anugu waa la wacyigelin karaa, barnaamij kasta loo samayn karaa, laakiin uma samayn karo shaqo abuur uma samayn karo. marka si inaa xakameeya aad bay u adag tahay. maalinta dambe inuu iga fakado cunugu ama ninka dhalinyarada saaxiibka nahay markaan dhowr jeer qadada ka dhiibo oo maalin celiyo oo maalin kale aan sameeyo, waxa weeye maalin dambe wuxuu leeyahay meeshaan oo faqriga joogi maaye adeer u daa. marka aad bismillahi raxmaani raxiim. qodobka laga hadlahayaa waa waxqabadyada maalin kasta ama horumarada laga hadlo dhalinyarada ku taagan. bahda barnaamijka VOA cabdiwaaxid macalin insaaq u horeeyo waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. howl culus ayaa ku jidhaan, allah idinku garab galo. annaguna waan ogsoonnahay. waxaan isleeyahay aniga muhiimadeeda markaan ka hadlo waa su-aal meesha ku jidha, laakiin soomaaliya 25 sano burbur tahay. 25kaas sano waxaa daashaday wax la yidhaha qabiil. anaa juf hebele iyo anaa juf hebele iyo annaka laandheera iyo adu laangaabaa tahay. kelmadaasaa daashatay. muhiimadda dhabtaa oo jirta waa qabiil. waxaa looga gudbin karaa oo qabiil looga gudbi karaa caqli ahaanteeda markaan hadlo. kelmadda qabiilku Soomaaliya waa burburiyey. dadkii hidaaya dhaqanka lahaa waa kala dawaafiyey. qaraabadii waa kala eriyey. xag ilaah kuma fiicno. waa tii la yidhi qabiilku litacaarafu ha ka bixinina. hadda litacaarafu marka waa ka baxo wuxuu galay in aarasho la isku dilo, in haddii lahayd ma xoolaha qabiil la isaga dhaco,
in haddii ilaahayd maaha labadii qofood isku dhaweed qabiil lagu kala fogeeyo koobkii yimaada in qabiil lagu qaybsado soomaaliya wax hore marka u diidan marka waa iyada khibrad ahaanteeda marka aniga haddaan ka hadla waxaa lagu baabi'in karaa waxay uga gudbi kartaa hay-adaha dowladda soomaaliya galmudug beesha caalamka kuwa ardul qurbaha jira inay sameeyaan wacyigelin dhaqaalihii inay bixiyaan dhallinyarta gudaha joogtaana wacyigelin ballaaran oo dhowr sano socota in la qabto anu ra'yiga noocaasaan isleeyahay waana ayidsanaha insha allah VON waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda VOA-da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaacid macalin isaaqa ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedinayay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidaa iyo nabadgelyo.